habeenkii kala wareegista calanka hoggaanka ee u dhaxeeya Real Madrid iyo Barcelona taasoo socotay xilliyadii ugu dambeeyay isbarbaryaaca gaar ahaan Real Madrid oo maalmo yar ka hor farqiga hoggaanka ugu raaxaysanaysa 3 dhibic ayaa ugu dambeyn xalay si hadiyada ugu wareejisay kabiirka Catalonia kadib markii ay diiday Los Blancos ku martiqaadida Catalanka Bernabeu iyagoo cadcadka hoggaanka ay hayaan waqti dadku idil ay sugayeen inay muujiso baraaruga Real Madrid iyo siyaadkaynta hoggaanka La Liga waxay ku dhacday godkii ay u qoday kulankii ugu muhiimsanaa Levante hor wajahida ninka tintala ee Pep Guardiola si khilaafsan saadaalinta naadiga Malaki ayaa faraha ka saartay furaha hoggaanka horyaalka Spain maslaxada cadaawadeeda ugu weyn ee Barcelona kadib guuldaradii xalay toole ee gool iyo waxba Real Madrid waxay muujisay wajiga xaqiiqiga ee weerarkeeda waxayna waayeen ruuxdii dagaalka iyo jawaab celinta sidoo kale waxay ka caajiseen in shabaqa kubadda ay dhex dhigaan iyadoo taasi ay tahay cusbada cuntada qeyrkeedina uma dhadhamayso sidii la rabay markay soo xaadirto waalida jamaahiirta laakiin haddii la waayo waxa kulanku noqonaya xusuus kaliya si looga tirtiro beejajka taariikhda hawa goolasha taasoo Real Madrid ka yeeshay kooxda ugu badan ee ku guuleysatay Champions League tiro 13 jeer iyo tan ugu badan ee ku fariisatay carshiga Liga taariikh ahaan 33 koob weeraradii holaca ee Real Madrid taariikhda soo maray waxay ahaayeen kuwa magac leh isla markaana gilgilayay goolhayaasha qulubtooda sidoo kale aysan ku dhiiranaynin difaacyada laakiin kuwa hadda jooga waxay noqdeen kuwa ka caajisa in shabaqa ay gaaraan si ay u lunto dadaalka kooxda dhammaan kuwa oo difaacaya qadka dhexe u shaqeeyaan weerar tabar daran weliba joogitaanka Abu Ibrahim Benzema oo marna xaadira marna maqan Vinicius oo ceyrsanaysa qarowga dhamaystir la'aanta weerarka sheekada 100 milyan Eden Hazardna waxaa ceyrsanaysa lacnada dhaawacyada balse laabashadiisii 82 cisho kadib laguma faa'iidin daqiiqado yar kadib wuxuu ku laabtay halkii uu ka yimid ee qolka xaaladda degdega ee isbitaalka Maringe anigoo aan hilmaamaynin canug caasiya iyo caado caabuq noqotay oo Perez ku saliday Real Madrid waana weelasiyaanka Gareth Bale oo iska hilmaamay qaabka goolka loo dhaliyo iyo caddayn aan la iska indhatiri karin oo muujinaysa sida uga caajisay difaacidda midabka naadiga cad waxay ahayd guuldaradii Levante mid xanuun badan taasoo soo gaarsiisay Los Blancos waxaana Barcelona ay ka yeeshay mid ku naaloota carshiga hoggaanka Liga waana arrin cabsi leh oo horseedi kara in gacmo furnaan la baxo taasoo aysan aqbali karaynin cushaaqda Madridista kufidda waa arrin xoojiya kuwa waaweyn laakiin joogtaynta guuldarada ayaanan ahayn astaan lagu yaqaano kuwa waaweyn xilli ciyaareed oo eber cadaan ah sida kelmaddu macna u leedahay oo ay ku dhibaatoodeen taageerayaasha Madrid in badan waxay ku bedeleen rajo xilli ciyaareedka cusub gaar ahaan markii Zinedine Zidane uu ku soo laabtay hoggaanka kooxda caasimadda ee dacidna kama nabadgeli doonto laacibiin ka caajisay raaligelinta cushaaqdooda maamul lagu bartay faragelin joogta iyo tababaro looga bartay meesha ugu sarreysa mar waliba uu geeyo kooxdiisa waana wax in ka yar taageerayaasha Madrid aysan aqbalay di caasimada Spain sidaas ay ahayd oo nalalku ay ka dansanayeen gobolka gooni ogoosadka ee Catalonia waa uu ka duwanaa in badan galabnimadii Sabtida waxay aqoonsatay bandhig qurux badan oo xidigaha kabiirada Catalonia iyo muujinta rabitaanka iyo gariintadii loo balansanaa sidii 3 dhibic uga qaadan lahayd iyo ku fariisashada carshiga jadwalka Liga ka hogaamin ahaan farqi 2 dhibcood weliba iyadoo fooda ay soo saaran tahay kalaasikada labaad ee Bernabeu ka horna kalfadhiga koonfurta Talyaaniga ee Napoli iyo saaxiibada Manolas kulamadaasi waxay ahaayeen kuwii ay ka heleen dhiirigelintii ugu weyneed katiibada Quique Setién ee Cataloniyaanka waxay ka faa'iideysatay Barca maalin uu xaadir ahaa meedaan ahaan iyo maskixiyanba Pulka Lionel Messi si ay waxa suuqan difaacyada diyuufta Catalonia iyo bandhig indhaha cushaaqdiisa u roona uu la yimid Lionel Messi kalmaduhu ay ka lumaan markaad isku dayaysid tilmaantiisa oon isku khilaafnaa inaan ogaano kuwaas oo ay la wareeraan kalmaduhu laakiin waa laga midaysan yahay horumarka uu sameynayo ee uusan ka caajisaynin si dadku kadib ay ugu heshiiyaan waxay tahay sababtu taasoo mar waliba uu soo muuqdo Bulga uu la imanayo bandhig cajiiba
sidee maya ku leedahay dadka oo ka caajisan waxay ku sifeeyeen xitaa cadowgiisa mustawihiisa indhadaraandarka leh waxaa mushkilad kaga jirtay hormoonka koritaanka ee ku dhacay jismi aad u yaraa kuwaasoo ehelkiisu ay yidhaahdeen dhammaadka bini'aadamka doorkiisu mushkilad ayuu ku abuuray manduumadda kubadda yurub iyo tan caalamiga waxaana sabab uu yahay messi in badanoo cushaaqdiisa in qalbigooda boos gaar ay uga yeelaan mar waliba way daawanayaan halyeyga nool oo ku jira gudaha garoonka kaasoo beddelay rikoorada iyo taariikhdaba xitaa ma jiro qaamuus kubadda cagtu ay leedahay waan lagu qorin gaabkan maakirka farqi sameeyaha bahalka canuga rosario ee daacadda ahaa iyo midka ka caashaqan qalcadda bulgrana dhammaan casriga aanu joogno buulga lionel messi magacan xayiray cid kastoo caalamka ku nool afarleydii shalay toole ugu shubay ee baar ayuu digniin ugu dirayay naadiga koonfurta talyaaniga ee naaboli kuwaasoo isku aadintooda kadib uu sheegay in koornooyinkaay ku tababaranayaan kadib markii labadii jeer ee ugu dambeeyey cushaaqda katalaanku ay la ilmeynayeen koornooyin loo wakiishay orige iyo manolas marka sheekada ay joogto tartanka yurub laakiin lionel messi maalinka uu maankiisu xaadir yahay laa shabaqa ibaar ayuusan ka caajisin walaa kuwii ka horreeyey xitaa kii ugu fiicnaa alison ee derbiga ambil dhacdo u noqonaysa sannadkii hore gudaha qalcadda kamno cid kastoo diidan magaciisa isagu wahaliyey horena loogu ogaa xirfad goolalineed oo mucjiso ah hubnaan baasas dhaadheer iyo mid gaaban gambis degdega iyo mawhibad cajiiba oo uusan kulansan xiddig kale oo ifkan soo maray ilaa iyo lionel messi ima ronaldo waa makiinadan ka dhammaan golasha rabitaan iyo grinta kaasoo xiddig kale oo ifkan soo maray uusan helin shalay toole waxa uu gaaray rikoor waayadan ay adkayd in la soo taabto waana isagoo 11 jeer oo xidhiira shabaqa u soo taabanaya cajuusta lovekio signore kulamada calcio serie-da si uu barbareeyo rikooradii ay dhigeen gabriel omar batistuta iyo fabio corella markay xaaladu xun tahay midka lagu baxsado iyo kan marka ay kooxda rooxdu faaruqda ku afuufa si ay u ahaadaan kuwa ugu dagaalama sharafkooda inta ay dhibici dhiiga ku dambayso beddelkeeda halkii madaxa hoos ay u raaricin lahaayeen doon toddobaadkan mar kale nasiibkiisa ayuu ku tijaabin doonaa tartanka ugu jecel yahay iyo kan yuve ay ka tiri waxaannu soo iibsannay mister champions league sidee maya ku leedahay adiga oo goolashii uu ka dhaliyey iyo inta jeer uu koobkan u haysto oo ah 5 jeer marka laga hadlayo midka loogu jecel yahay yurub ee UEFA Champions League dhibanihiisii ugu dambeeyana waxay ahaayeen hindida Madrid kuwaas oo isagu qalcadda Allianz Stadium habeen mugdiya ugu shiday haddaba doon sanadka miyuu ku guulaysan doonaa koobka UEFA Champions League haddaba haddii aad jeceshahay xiddigan hore waxaan uga samaynay warbixin cajiiba nagula raaxayso qadar yar kadib magacaygu waa Cabduqaadir Qayska markay rikoorada jabaan oo ay da'du noqoto xisaab kaliya ogsoono ujeedadu inuu yahay bini'aadam aan ka caajisin tartanka saaruuqan ka walwalin shabaqa iyo rasaas cishqi u haysa gelidda meel kasta uu joogo tartamaaga iyo sida ay tahay duruuftaba waxaa mustaxiil ka ah kuwa guulaystay inaysan keliya ku koobnaan hami isku dayidda waxay wadda u tahay gaarista riyo kasta cristiano ronaldo dos santos aveiro wiilkan mar kasta oo la yidhaahdo waa uu waxa uu yahay mid ka soo hoosbaxaya ciidda hoosteeda weliba mustawa cajiiba oo jahawareerinaya kuwa u dhow ka hor cadowgiisa isagoo ah mid ka dhaliyey dhammaan kulamadii kooxdiisa u saftay tan iyo bilowgii sannadkan 2020ka weliba da'da 35 jirka kama zuulin inuu u tartamayo abaalmarinta kabta dahabka kadib markii uu gaaray goolkiisii 20aad kaalinta labaadna uu ka istaagay goolalinta calcio gadaasha Cairo Immobile goolalyaha kooxda Lazio ee dalka Talyaaniga tartan looga bartay difaacyadu inay yihiin kuwa ugu adag qaaradda duqda inkastoo guuldarro toddobaadkan ay ka soo gaartay naadiga Verona wuxuu awooday Portugaleskan inuu goolka kaliya Bianconeri isagu u dhaliyo kaasoo isagu ku xaqiijiyay rikoor cajiiba iyo dhalinta 10 kulan oo xiriira tartanka horyaalka dalka Talyaaniga
ka ahaan laacibkii ugu horreeyay taariikhda horyaalka iyo kan la gaaray kooxda sayidatul cajuus nambarkaasi waxaana uu ka tallaabay nambarkii David Trezeguet wiilka diiqyada. rikoorradan ayaa kuu muujinaya heerka ay gaadhsiisan tahay awoodda Don iyadoo weliba da'diisu ay sii kordhayso si hadafkiisa koowaad uu ahaado kadib markii uu ka hadlay in xaqiijinta Champions League markii lixaad wax waliba ay kala muhiimsan tahay. sidoo kale naadigiisa ayaa qabta fikraddaasi sidee maya ku dhihi kartaa adigoo og in qasnada naadiga dhagaweynuhu uu ka maqan yahay tan iyo 9-meeyadii waana waxa uu sugayo weeraryahankan Burtuqaaleeska go'aaminta Champions League si uu ugu tumo jamaahiirta hees dhawaqeedu muddo uu ka maqnaa si uu u barbareeyo Saaruukh Madera nambarka Holandeeska Clarence Seedorf ka ahaan laacibka kula guulaystay tartanka Yurub 3 koox oo kala duwan. tani waa bay taariikhda oo hoos jiifta lugaha Saaruukh Madera markasta oo la yiraahdo way buuxsantay wuu ku sii ziyaadinayaa laakiin su'aashu waxay tahay miyuu yahay kii farxad gelin lahaa marwo duqa oo u cararaysa ka talinta maxalliga iyo tartamida Yurub ahaan. sidoo kale miyuu ku guulaysan doonaa baabi'iyahan kabta goolalinta Calcio iyadoo weliba ay adag tahay loolanka tartamayaasha. waa su'aalo fara badan oo jawaab celinteeda u taalo lugaha CR7 Saaruukh Madera kuwii go'aamiyey koobab misna doonaya kuwa kale. warbixintan waxaa idiin soo turjumay anigoo Cabduqaadir Qayska.